waxaan codsanaynaa waana la dhibay annaga oo dib xooganaana loo geystay annagoo khayrkaa wadnay oo waxaana lagu maagay maxay ahaydayay media social media oo waxaana la leeyahay maxay oga hadli waayeen ninkii coldoon oo ka hadlay arrinka kiristaameynta iyo annagu ma lihin xaq buu ahaa iyo kaasu ah ma lihin mana aanan jeclayn in uu maxay ahayday sidaa isu soo qotomiyo ma aanan jeclaysan laakiin dadkiibaa waxay meel kasta noo dhigeen waxay yidhaahdeen meelaha ku soo qoreen culamaa maxay ahayd culamaau laxm culamaau sulta culamaau fuluus waa la kulanteen maxay ahayd boorsaa la idin dhiibay soo ma garanaysid xataa wallahi xataa biyo maanan cabin soo ma garanaysaan ilaahay dartii baana loogu yeeray annana ilaahay dartii baan u qaabilay annagoo dhibkaana gaaray waxaan codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii uu ninka diin buu qabsaday ina coldoon in la sii daayo baan codsanaynaa maxaa yeelay diin buu naga galay oo yidhi dee kiristaan baa hortaagnahayay kaasee waa la xiray ummadiina way daba gashay meel kastoon marna hargeysana waana lagu maagayey meel kastoo booramaan nimaanana waana lagu maagayey idaacadihiina waana lagu maagayaa meel kastoon maxay ahayda dhegaysanana way ka soo boodaysaa soo ma garanaysid mid baaba noogu darnaayoo na wada gaalaysiiyey oo yidhi maxay ahaydayay daaquud bay raaceen kaasuu ahaa hadda ka hor baa waxaa dhacday aniga kenyan ka imi madaxweyne waxaa noo ahaa nin kibaki la dhaho kibaki oo gaal ah wuxuu eriyey sheekh shuyuukhdii ka mid ah ayuu waddanka ka saaray oo sheekh maxamed sheekh cismaan la yidhaahdo buu eriyey wuxuu noogu soo booqday magaalada gaarisa oo NFD da taqaaneen oo gaarisa ah culimmadii baa u timi haddii madaxweynihii gaalka ahaayee la socda way u timi waxay ku yidhaahdeen madaxweyneheenaa tahay laakiin sheekheennii caalimkeennii diinta darteed baa dad u masaafurisay waxaan kaa rabnaa inaad noo ogolaato sheekheennii inaad noo soo celiso mikrofoonku intuu qabtay magiciiyuu yidhi waxaa la yidhaahdaa maxamed sheekh cusmaan wasiirka arrimaha gudaha dowladda xukuumadda may maqlaysaan intaan gaarisa joogo waa inuu soo galo sheekhii kenya waa inuu cagaha soo dhigo isla maalintii ku xigtay sheekhii waana loo keenay waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa in annagoo ku hadlayna magacii culimmada dhibkaana na gaaray nala maagay ina coldoon iyo wixii diinta loo xiray oo aanan waddanka dhib ku hayn noo sii daysid tafaadulan baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran